Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. bismillaahi raxmaani raxiim door wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka idaacadda Shabeellada ee sana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo kulamo saxaafadda dibadjoog ka tahay kulay xarunta madaxtooyada maamulka Puntland doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka ee san musharaxiinta qaarna ka qayb galin oo maanta ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Baay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin oo hogaaminaya oo maanta booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Nairobi shir looga hadlayo dhibaatooyinka ciidamada Kenya ee ka geystaan qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ka furmaya Mandera guddoonka baarlamaanka Puntland oo shaaciyay liiska gudiyada golaha wakiilada maamulkaas saraakiisha ciidamada Amazon oo sheegeen inay furayaan wadooyinka qaar ee xiran ee gobolka Shabeellada Hoose midowga Yurub oo ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay maamulka Puntland wararka dibadda Shabeelle doornimadan waxaa ka mid ah Mareykanka oo xayiraadii ka qaaday shirkado laga leeyahay dalka Ruushka iyo mucaaradka Syria oo weerar ku qaaday saldhig Ruushka uu ku leeyahay galbeedka dalka Syria waa duhurnimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 28ka bisha January sanada 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaraa Anisa Cabdullaahi Maxamed Anisaanfa aad baad u mahadsan tahay guleed Cumar Xasan bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhagaystayaal warkiyo fidsan madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa kulmo saxaafadda ay dibadjoog ka tahay ku leh xarunta madaxtooyada maamulka Puntland ee magaalada Garowe wariyayna guleed Cumar Xasan oo arintaasi si gaar ah isha ugu hayay oo iminka dhinaciga fadhiya guleed maxay ka hadlayaan baa la leeyahay madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta Puntland Aniso aad baad u mahadsan tahay wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxay sheegayaan xarunta madaxtooyada maamulka Puntland ay haatan kulan xasaasi ah ku leeyihiin halka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale oo ku wada sugan Garowe kuwaas oo dhawaantan ka qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulankan waxa sidoo kale la sheegayaa inay goobjoog ka yihiin xubno ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka Puntland mas'uuliyiin hore oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee Puntland Farole iyo qaar ka mid ah isimada maamulka Puntland inay kulankan goobjoog ka yihiin sida warku ay sheegayaan saxaafadda kulankan inkastoo ay dibadjoog ka yihiin Anisa haddana kulankan oo waxa la sheegaya inuu yahay mid lagu doonayo in lagu soo afmeero khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jiray oo kulankana la doonayo in gebi ahaanba maanta la soo gabagabeeyo natiijooyinna ay ka soo baxaan maadaama madaxda la filayo ugu dambeyn maalinta beritaan inay ka soo ababaxaan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland marka Anisa kulankan waa mid xasaasi ah ayaa la yiri oo inta badan xubnahaasi dhaliilaha qaba ee madaxda dowladda u qaba ayaa goobta ka hadlayaan oo in la qanciyo ayaa la isku dayaya ilaa haatanna wixii ka dambeeyay caleemasaarkii kulamada daba jooga ayaa socday oo tabashooyinka lagu xalinayay wararku waxay sheegayaan in xubnaha qaar maamul goboleedyada ilaa haatan la mari laayahay oo qaabkii loo xalin lahaa lagu mashquulsan yahay sida madaxweynaha maamulka Jubbaland oo aad u cabanaya sida la sheegay oo arrinkiisa si aad loogu mashquulsan yahay xalintiisa maadaama uu ka cabanayo faragelin dowladda Soomaaliya ku hayso Jubbaland sidoo hadalku u dhigay dhowr marna arrinkaas uu tilmaamay marka Anisa waxa la filayaa kulamadan saacadaha soo aadan in la soo gabagabeeyo si maalinta beritaan madaxdu ay uga soo ambabaxaan magaalada Garowe oo maalmahanba ay ku sugnaayeen aad baad u mahadsan tahay guuleed dhagaystayaal wixii warar ah ee ka soo kordha kulamada siyaasadeed ay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan Garowe wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan insha Allah doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka oo musharaxiinta qaar aysan ka qayb galin ayaa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wariyayna Ismaaciil Axmed Maxamed Turki ayaa warkan si anba qaadaya Cabdullaahi Sheekh Maxamed ayaa ku guuleystay kursi ka banaana baarlamaanka aqalka hoose kadib markii uu ku soo baxay doorasho aan cidna kula tartamin 4 musharax ayaa u tartantay kursigan banaana oo uu ka geeriyooday Allah u naxariistay xildhibaan Khaliif Sheekh Cabdullaahi Dheer oo xubin ka ahaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka iyadoo 44 ergo ay dooranayeen xildhibaanka buuxinaya kursiga ka banaana golaha shacabka
afartan musharax ayaa kala ahaa cabdullaahi sheekh maxamed isaaq sheekh macalin xasan, macalin ibraahim iyo cabduqaadir maxamed nuur, iyadoo 3 ka mid ah 4 musharax ay ka maqnaayeen goobta doorashadu ay ka dhicisay oo ahayd magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. 3 musharax ee aan soo xaadirin goobta ayaa waxa ay ka hadleen sababta ay u soo xaadiri waayeen doorashada, iyagoona sheegay in loo diiday inay gudaha u galaan madasha ay ka dhicisay doorashada. arrintaasina waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuqkii ugu xumaa. dhanka kale injineer maxamed axmed nuur oo xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada, waxaana uu sheegay in cabdullaahi sheekh maxamed uu ku guuleystay kursiga ka bannaanaa golaha shacabka isagoona helay 35 cod. waa doorashadii ugu horreysay oo nuucan u qabsoomta iyadoo ay ka maqan yihiin goobta doorashada ay ka dhicisay dadkii tartami lahaa, balse guddiga doorashooyinka qaranka waxay ku tilmaameen inay tahay doorashadan mid ansax ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. dhinaca kale shir looga hadlayo dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geystaan qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa maanta ka furmaya magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Cabdullaahi Cusmaan Cadaan ayaa warkan eegaya. xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdiga hogaaminayo ayaa maanta booqasho rasmi ah ku gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dalkaas ayaa ra-iisul wasaaraha wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta. ra-iisul wasaare khayre ayaa casuumad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta sida ay shaaciyeen ila ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ayaa ka wada hadli doona adkeynta xiriirka labada dowladood, ballaarinta iskaashiga dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada dowladood. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira eedeyntii Kenya u jeedisay Soomaaliya, taas oo ku aadneyd in hubkii dhowaan lagu weeraray hotelka Dusit ee Nairobi ay lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa booqashadan kadib shir u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya ee Kenya uga qaybgeli doona magaalada Mandera gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. shirkan oo socon doona muddo 2 cisho ah ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geystaan xadka labada dal, gaar ahaan burburinta ay alaaba u geystaan xarumaha shirkadda Hormuud ee ku yaala koonfurta Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay cagta mariyay dhowr xarumood oo ay Hormuud Telecom ku lahayd deegaano ka kala tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Gado ee maamulka Jubbaland. guddoonka baarlamaanka maamulka Puntland ayaa shaaciyay liiska guddiyada golaha wakiilada ee maamulkaasi. maxamuud cabdinaasir soofeysna ayaa warkan sii ambaqaadaya. liiska guddiyada golaha wakiilada Puntland ayaa maanta lasoo saaray xilli maalmihii ugu dambeeyay guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka maamulkaasi ay mashquul ku ahaayeen dhismaha iyo isku hagaajinta guddiyadaasi. guddiyadan oo tiro ahaan ah 8 guddi ayaa ka kooban midkiiba 6 ilaa 7 xubnood, waxa ayna kala yihiin guddiga shuruucda iyo cadaaladda, guddiga siyaasadda, qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka, guddiga howlaha guud, ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha, guddiga arrimaha bulshada iyo dhaqanka, guddiga anshaxa iyo arrimaha golaha, guddiga arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga, iyo guddiga amniga iyo nabadgelyada. guddiyadan oo ah kuwo dastuuri ah ayaa baarlamaanka Puntland u qaabilsanaan doona in ay dabagal ku sameeyaan shaqooyinka wasaaradaha iyo sida ay ugu adeegayaan bulshada Soomaaliyeed ee goboladaasi degan. dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhex maquuranayay isbeddello lagu sameynaya hay'adaha kala duwan ee maamulka, laga soo bilaabo soo xulistii xubnaha baarlamaanka oo ka kooban 26 xubnood, magacaabistii guddoonka golaha iyo ku-xigeenadiisa, iyo doorashadii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee 8 bishan ka dhacday hoolka baarlamaanka magaalada Garowe, taasoo ahayd mid si weyn u soo jiidatay indhaha Soomaalida iyo caalamka marka la fiiriyo sida ay ku dhacday iyo tartankii daahfurnaanta ahaa ee dhexmaray murashaxiinta Puntland. muddo kooban kadib madaxweynaha maamulka Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani
waxaa laga sugayaa soo magacaabista golaha xukuumadda maamulkaasi. saraakiisha ciidamada amisom ayaa sheegay in ay furayaan wadooyinka xiran ee gobolka shabeellada hoose. aadan daahir cabdi aadan diyeesh ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan soo jeedinaya. taliyaha ciidamada dalka Uganda ee howlgalka amisom ee Soomaaliya General Michael Kabango ayaa la sheegay in booqasho uu ku gaaray magaalada Baraawe iyo deegaanka Marion Gubay oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose, halkaas oo la sheegay in howlgallo ay ka wadaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya. ciidamadaasi oo ka socda midowga Afrika ayaa la sheegay in hore halkaasi loo geeyay si ay halkaasi ugu sameeyaan howlgallo ka dhan ah xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. taliyaha ciidamada Uganda ee amisom ayaa la sheegay in safarkiisa sidoo kale uu ku tagay garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Baraawe, halkaas oo la sheegay inuu ka socdo dhismo ay ka wado dowladda federaalka ee Soomaaliya. taliyaha ayaa waxa uu xusay in ciidamadooda iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka dhaxayso wada shaqayn xoogan iyo waliba sidii ay dagaal xoogan ula gali lahaayeen xarakada Al-Shabaab ee ku sugan deegaanadaasi. taliyaha ayaa xusay in Al-Shabaab xilligan ay soo food saartay dhaqaale darro xoogan kadib markii uu sheegay in lagala wareegay magaalooyinka ku yaala xeebaha ee gobolka shabeellada hoose iyo deegaanada kale ee Soomaaliya. wuxuu intaa ku daray in ciidamada amisom iyo kuwa Soomaaliya ay dhowaan sameyn doonaan howlgallo ballaaran oo la doonayo in lagu furo qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka shabeellada hoose. taliyaha ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ay doonayaan in halkaasi ay ka saaraan miinooyinka lagu aasay iyo weliba waxyaabaha kale si sahayda gargaarka bini'aadanimo ay u gaarto deegaano badan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose. ururka midowda Yurub ayaa ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada maamulka Puntland. wariyayna Jaamac Maxamed Saalax ayaa warkan inoo haya. midowda Yurub ayaa aad u boogaadiyey qorshooyinka isbedelka ee uu wado madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo habeen hore lagu caleema saaray magaalada Garowe. midowda Yurub wuxuu u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Puntland una rajaynayaa inuu ku guuleysto xilka cusub ee loo doortay. midowda Yurub oo saaxiibka soo jireenka u ah Puntland waxaa ka go'an inuu la shaqeeyo Dani, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay midowda Yurub. dalalka Yurub waxaa kaloo ay sheegeen in ajandooyinka madaxweyne Dani ay ku qotomaan dhismaha dowlad leh tiirar adag oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa iyo waxa loogu yeero argagixisada, sidoo kalena shaqooyinka loogu abuurayo ay fursad u tahay da'yarta. isagoo ka hadlayay xafladda caleemasaarkiisa Dani oo 53 sano jir ah, kaasi oo bartay dhaqaalaha, wuxuu ballan qaaday inuu joojin doono hay-adaha dowladda, kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo argagixisada. madaxweyne Dani ayaa si la mid ah wuxuu carabka ku adkeeyey inuu fursado shaqo u abuuri doono dhalinyarada, isaga oo ku nuuxnuuxsaday sida ay maamulkiisa uu da'yarta kaga qaybgelin doono siyaasadda. midowda Yurub ayaa ka fuliya deegaanada Puntland mashaariicyo u badan dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha. halka aad warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee Shabeelle. kooxaha mucaaradka ee dalka Syria ayaa weerar loo adeegsaday diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha lahayn ku qaaday saldhig militariga Ruushka uu ku leeyahay gobolka Latika. militariga dalka Syria ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka hortageen oo ay soo rideen diyaaradda nooca droniska ah oo ku sii jeeday saldhigga militari ee Ruushka ayaa ka digay halista kooxaha argagixisada ee dalka Syria oo uu sheegay inay adeegsanayaan tiknoolajiyadda casriga ah. militariga dalka Ruushka ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ka howlgelayay gudaha dalka Syria iyaga oo garabsanaya madaxweynaha Syria Bashar al-Assad. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa xayiraadii saarneed ka qaaday 3 shirkadood oo Ruushku leeyahay kuwa hore cunaqabateen loo saaray. qaar ka tirsan mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ayaa door weyn ka qaatay cunaqabateynta laga qaaday shirkadahaasi. Mareykanka ayaa hore xayiraad u saaray shirkado iyo shakhsiyaad ganacsato ah oo u dhashay dalka Ruushka kadib markii uu xumaaday xiriirka labadaasi dal. warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ciyaartana dhageysanaysay xilligan oo inaga intaa. wada warkeena oo isaga waxay dib uga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radioshabelle.com.